madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hoos maray bilowgii magacaabidda ra'iisul wasaarihiisa filashadii dadka waxaana uu sameeyey xulashada wasiirka koobaad isagoo ku saleeyay khibrad yari shaqo dawladeed iyo inuusan ahayn shakhsi xukunka kula dhegaya madaxweynaha ama ugu yaraan maamulka xafiiskiisa ku hagoogan doona xasuusnow kal hore cabdi saacid shirdoon iyo astaamihii xulashada waa uu kala mid yahay xamse aar waxaana si dhib yar ku soo baxay xamsa tiyo uu fuliyey dookha doorashada iyo doonista xukuumadeed ee madaxweyne xasan sheekh haddaba maxaa mideeyey shirdoon 2012 iyo xamse 2022 xafiiska shaqada badan ee ra'iisul wasaaruhu waa mishiinta ama xarunta shaqo oo qofkii taga waxa uu yaalla qiimeyn shaqo taasoo ay ugu muhiimsan tahay hal-abuurkiisa waxqabad iyo hannaankiisa hoggaamineed sooyaalka xafiiska waxaa soo maray rag bilay meeqaam ahaan waxaase jira kuwo fulintooda ka tanaasulay ra'iisul wasaare saacid shirdoon waxa uu ahaa shakhsi in badan asaaska u dhigay haykalka xafiiska balse sababtii uu ku yimid ayuu ku baxay waana tusaalaha mudan in hadda la fahmo ee kulmiya aar iyo shirdoon astaamaha mideeya labada ra'iisul wasaare ee soo dedejin kara bixista xamse ayaa ah kow xukuumadda qarsoon ee UPD haddii saacid shirdoon uu hoggaaminayo golo xukuumadeed oo dawladjadiid awoodda ugu badan ka leedahay fulinta iyo socodsiinta xafiiskana iyadoo la wareegtay iminka waxa uu xamse wajahayaa UPD oo wajahaysa wareegga maamul ee xafiiskiisa faarac cabdulqaadir iyo cabdikariin xuseen guuleed ayaa ahaa wasiiradii idmanaa ee xafiiska shirdoon korjoogtayn kari waayey wakhtigan waxa uu xamse ku gudban wasiirro intii hore ka badan oo aan xafiiskiisa ka tala qaadan abshir bukhaari balcad beene iyo faarac cabdulqaadir mar kale ayay soo laabteen waxayna xagga sare kaga jiraan raggale xafiisyada ku xidhan fiilla soomaaliya kuwaas oo aan xafiiska xamse wax weyn u arkayn xaaladda lagu magacaabo wasiirrada idman ayaa ahaa dhaqan la arkay hoggaamintii hore ee madaxweyne xasan sheekh waxayna mar kale naqtiin ahaan loo daawanayaa xamse iyo xasan laba saluugga siyaasadeed ee xasan sheekh ee ka dhankaa xamse oo lagaga baxsanayo madaxweynuhu waxa uu wajahayaa mucaaridnimo ka xooggantiisii hore kolkan waxaa isugu biiraya saluugga saamiyada beelaha jiritaanka dawlad goboleedyada qaarkood caraysan dhaqaalaha iyo mashaariicda caalamka tii oo ay jirto in mas-uuliyadda xukuumadda loo raray dhinaca xafiiska madaxweynaha waana arrin kale oo midaynaysa ama isku ekaysiinaysa xamse iyo saacid labada qodob ma soo dedejin kartaa kala tagga xamse iyo xasan sheekh waa madaxweyne ay u fududdahay ka sii nasashada xiisadaha siyaasadeed si fududna ugu noqo sida uu ku baxay saacid hirmooshineed ay maamushay fiilla soomaaliya ayuu saacid sababsaday mooshin la rumaysan yahay inay qaabeeyeen wasiiradii xukuumaddii saacid ee xakamadiidka ku ahaa ra'iisul wasaaraha ayaa keenay inay shaqada ka xayuumiyaan baarlamaanku ku darso in mooshinkaasi weli yahay ka keli ah ee ra'iisul wasaare laga keenay oo loo diiday inuu isdifaaco xamse hadda waxa uu muuqdaa muddo kooban inuu ku gaadhay xakamayn la'aanta golihiisa hoggaamintiisa maamul oo saluug saaran yahay su'aashuse waxa ay tahay xamse ma isdifaaci doonaa baarlamaanka hortiis mise waxa uu taariikhda kala simi doonaa saacidkii uu jidkiisa iminka hayo dhanka kale madaxweyne xasan ma qaadan doonaa culayska kaga dhasha dookhiisa habmaamul ee wasiirrada idman si kastoo ay ahaataba warin kale ayaannu ku eegi doonnaa ifafaalaha socda waxaa ka soo bixi doona shirarka u socda xamse iyo lama madaxweyne dowlad goboleed ma ogtahay applicationka Baysi inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta Baysi waxa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo Ameerika haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store